وايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan bahda warbaahinta aan u yeeray ee hortayda tuban. waxaan muddo ka maqnaa warbaahinta iyo madalaha siyaasadeedba. waxa ii muuqday waxaynu siyaasadda ka dhiganno ee aynu ku soo celcelinno ee warbaahinta ah ee aflaagaadada u badan iyo duruufta adag ee dalku ku jira inay kala fog tahay. marka waan iska gabaday ugu horeyn ilaahay waxaynu ka baryaynaa ummad muslimiin aynu nahay abaarta adag ee dhammaan geesku ku jiro ee dhammaan ummadii Soomaaliyeed ku habsatay inuu ilaahay naga saaro. ilaahay roob iyo nimco inoogu bedelo dhammaan xaaladaha cidhiidhiga alan uu inaga saaro. ilaahay baynu taa ka baryaynaa. xaaladaas xaalad adaga siyaasiga ummadda u damqanayaana inuu taa wajaho oo uu faaleeyo weeye. waxa kala fog markaa xaalka aynu siyaasadda ka dhigannay ee maalin walba warbaahinta ka baxda ee beenta iyo aflagaadada iyo inagoo iscaayno u badan ayay u badan tahay. waxa saaka aniga ay keenay warbaahinta horteeda ayaan sheegayaa. bal ila eega warbaahinay idinku ila eega. waxa saaka jaraa'idkan ku qoran siyaasi duur oo ka mid ah mustambeedka wadani oo Muqdisho ka degay. wuxuu yidhi wuxuu kulamo daahir yaa shamisa bal af Soomaaligu ku xeel dheeraanayaday uu la yeeshay oo dhex mareen farmaajo. xisbiga wadani ayaa Muqdisho u diray siyaasi duur waa dhiig bax bay ku tahay buu yidhi qaranka. cidda dhiig bixinaysa bal markaa waynu way idinkaa sheegi doono garta qaadi doono. hadallo badan buu qoray bale jaraa'idka. waxaa laga yaabaa inay warbaahin kale ku soo baxday. waxaan isleeyahay taasi malaa dee jawaab hadal uma baahna. madasha aynu joogno iyo meesha aynu joogno iyo muuqeenna wada jirka ah ayaa maragmalaa ugu filanay inaan af Soomaali ku sharaxo oon idhaaho waa beentii inaan af Soomaali ku sharaxo oo dhaleeceeyo uma baahna baan isleeyahay. madasha iyo goobta aynu ku sugannay iyo idinka warbaahinta ila jooga ayaa marageeda furi doona. garsoorkuna shacabkaynu u dayn doonaa. waxay muujinaysaa jaraa'idkaasi waxay muujinaysaa warbaahinta ku hadasha magaca xukuumadda, warbaahinta ku hadasha siyaasadda kulmiye, warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda jiheeyuhu ka lumay ee beenta ku soo celcelisa ayay muujinaysaa raadka ay bulshada kaga tegayso iyo qaranka ay kaga tegayso ayay muujinaysaa. waa siyaasad xumo, waa hogaamin xumo, waa talo xumo ayay la muuqataa aniga. waa beentii joogtada ahayd ee ku salaysnayd kala qaybinta iyo qoqobka bulshada 25 sano qarankooda ka dhur sugaysay ee sugaysay inuu mar walba aqoonsado. maxaa filaysaan dhalin baatiin rajada bulshada sugaysay marka maalin walba la yiraaho qof weyn oo aan macna moodeyseen oo qaranka xilal muhiim ah ka soo qabtay xalay buu tagay soo ma bulshay kala yaaca. waa bulshay kala yaaca intii kale na way kala dareeraysaa. marka waa kala dir loo geysanayo bulshadii reer Soomaaliland. waa hal ku dhig oo halhays ka dhigtay hoggaanka talada xun ee xisbiga kulmiyaha. waa hal ku dhig isaga siyaasad ka dhigtay kala qaybin ka dhigtay hadalkan ku soo celceliya. waxa maxay ahayd maamaadi markuu ninka saaxiibul beedku rabul beedku durbaanka tumo caruurtuna way ciyaartaa bal caruurtuna way ciyaartaa. marka hoggaankii kulmiye uu tumay muusikan ayaa dadka isla u hiiliyana waxay ku taageerayaan beenta uu ka helo oo noocana beentanay ku taageerayaan ilaa qofkii baa ka helay mas'uulku wuxuu ka helo ayay taageerayaashiisuna jecel yihiin inay ku raali geliyaan oo ay iyaguna sheegaan. marka waxa lagu raali gelinayaa beentan qof beentan jeclaysanaya oo ummadda hogaamin iyo inuu mansab muhiim ka doonayo sheeganayo. hawshan waxaan isleeyahay anigu waxaan oo kale marka la qorayo qaranka dhibana koobaada. waayo horeynu sheegno balayaga ummad qarni samreysay ka dhur sugaysay qarankeeda marka subax walba qorweynteedii la qorayado beena way kala dareereen oo way kala yaaceen. miyaan ahayn naxdin waxaan ka gemi waayay la xalayto
telefoonada bulshada reer Somaliland ee ila soo hadlaysay lahayd xageed joogtaa maan moodayn inay beentu sidaa dadka u raadeynayso dabeedna waxay noqotay inaan hor imaado warbaahintii aan muddada ka maqnaan idhaaho ma joogo aan iscadeeyo aan idhaaho ma joogo subax walba in waxaa lagu soo celceshaa waxay ku tahay qarankay dhibaato ku tahay kala qaybin bay bulshada ku tahay samir dil bay ku tahay bulshada 25 sanadood ka war sugaysay in ilaahay maalin ay adduunyada ka mid noqdaan inuu tuso dadkii sugayay ayaa moralkiisii la dilaya waa la kala diraya waa la kala dareerinaya marka koow qaranka dhibanaa koobaadka talabaad waxa la maagayaa xisbi dhan oo laga yaabo inuu wato taageero aad u ballaaran oo bulsho ballaaran oo misayla ilaa cidhifka bari ee Somaliland taageerayaal ku leh ka soo baxay muujiye cudud ku leeyahay cududdiisuna subax walba ay kordhayso ayaa waxa la doonayaa in la shaambadeeyo oo shaambad Soomaali weyn lagu dhufto yaa Somaliland markaan anigu noqon waayay Somalilander anoo intaasoo xil qaranka u qabtay waa kuma ka Somalilanderkii waa kuma xagu jooga waxaan ka soo qabtay xil adeeg wakaaladda biyaha barbaraan ka soo shaqeeyay waxa la doortay xil dhibaan waxaan qabtay mas'uulkii ugu sareeyay ee wasiir xilku qaban lahaa oo wasiirka amniga xil iga maqan garan maayo markan anigu saaka aan xamar joogo bulshada joogaysa la leeyahay jooga waay aad bay dhibaato u tahay marka qaranka dhibana ka ah xisbiga la muday baa dhibana ka ah shacabka dhibana ka ah waxay muujinaysaa oo beentani daba socotaa oo aan xisbiga ula xiriirinaya shalay hogaankii guud ee xisbiga ayaa Nairobi tagay oo kamid ah dalalkaynu jaarkanahay Kenya dabeedna waxa la yiri hebel bay arkeen hebel kale arkeen qaranka iibinayaan mas'uuliyiinta meesha marayayna xukuumadii kulmiye ee ilaa hadda taagan mas'uuliyiinta xilalkii ugu muhiimsanaa ka qabtay baa markaan iyagu aanay Somaliland ahayn waa kuma ka Somaliland shacabka la qoys gelinaya waa la qoys gelinayaayo waxa laga dilayaa qarankooda inay u samraan oo ay sugaan waxaan ku soo ururinayaa runtii anigu waxaynu doonaynaa garaadkaygu faraya siyaasad waxa ka qoto dheer inaynu bulshada hor dhigno inaynu bulshada duruufteeda rasmiga ah iyo xaaladda adagay ku jirto iyo rubuc qarniga halkay maraysay inaynu la nimaadno waxay kaga baxayso duruufta taagan in siyaasad looga dhigo laga iibiyo qofka maanta abaartu haysaa ee xoolihii ka madheen ee gaajaysan ee silca ku jira ma iibsan karaya aflagaadada aanu saaka warbaahinta laga akhriyayo ma iibsan karaya hebel baa tagay iyo hebel baa cararay wax ka iibsamayo maaha laakiin qofku wuxuu doonayaa inuu iibsado wax duruuftiisa ka turjumayo inaynu la nimaadno waxaan halkan ka cadaynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee aynu deriska nahay anigu khayr baan la jecelahay wanaag baan la jecelahay nabad baan la jecelahay walaalnimaan la jecelahay iimaankaygaas ayaa baqraay waa muslimiin ummad baynu isugu xidhnaa shacabka reer Djibouti ee Soomaaliyeed ama shacabka reer Djibouti guud ahaan ee muslimiinta ayaa nabad la jecelahay kuwa Itoobiya degaan nabad la jecelahay kuwa Soomaaliyeed baa nabad la jecelahay iimaankaygaas sida ay faraayeen iyagoo halkooda degan waynu ku heshiin weynay inaynu qaran mid yeelano waynu kala tagnay waxaan qabaa qaranka Soomaaliland dibadda loo taago oo laga saaro xaaladda adigu ku jiro raganimo iyo karti iyo aqoon iyo isku kalsooni lagaga saaro oo been lagaga saaro run lagaga saaro ayaan jecelahay waxa kale oo jecelahay ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay nabad siiyo in Ilaahay hoggaan wanaagsan u soo saaro in Ilaahay dejiyo dalkooda iyo dadkooda liibaan baan la jecelahay waayo iimaankeena wanaagsan iyo diinteena ayaa ina faraysa inaanayna noolaan karayn iyadoo jaarkeenu gubanayo ma noolaan karayn ma joogi karaysid gurigaaga nabad ahaan maayo iyadoo deriskaaga dab ka baxayo saameyn bay nagu leeyihiin mid togan iyo mid taban labadaba duruuf kasta oo ka jirta Soomaaliya marka inay hoggaan doortaan iyagay jirta inay hoggaan doortaan baynu ugu hambalyeynaa inay rajada laga qabo helaan baynu ugu hambalyeynaa inay wax qabsadaan baynu ugu hambalyeynaa xadantada dagaalka lagu celceliyana qalbigaygu xor buu ka yahay haddii ummadda Soomaaliyeed istishay hadday kala tagtay haddii qoloba qarankeedii dhisatay inta aan sii xoqanayo shalaalay dilay
waxaan u aqaanaa wax gaaban oo liita waxaan u aqaanaa cuqdad waxaan u aqaanaa talaan kalsooni lahayn haddii Soomaali istishay iyaguna way istileen waa la kala tegay uma ahmalihi waxaad nool oo dhashay shabaabkiina ay hortuban oo ka dambeeyay taariikh dhacday oo meel ku qoran ha noqoto laakiin taariikh cabatina oo aan liido oo aan saaka la damqanayo yay noqonay waa inay noqotaa taariikh laga gudbay marka waxaynu leenahay walaaladeen waxaynu hadhistaan taladeena halkana inagu aynu wada jir iyo midnimo kaga saaro waxaan leeyahay la qoqobi shacabka reer Soomaaliland hal la mideeyo inta midaysan oo midnimadooda hal la ilaaliyo isku duubnidooda hal la ilaaliyo wada jirkooda hal la ilaaliyo shacabkana waxaan ugu baaqayaa kursiga madaxweynenimo 3 qof baa ku tartamaysa nabadda Soomaaliland 3 milyan oo qof baa ilaashada iyo wada jirkeeda iyo horumarkeeda doonayo waxa daneeyayaal ka ah oo kursiga doonaya 3 qof oo kaliya 3 qof siyaasad wanaagsan la yimaadaan oo bulshada ay kaga saarayaan duruufta bulshaduna danteeda ha raacdo oo kala qaybinta iyo qoqobka ha iska ilaaliso kay danteeda u aragto codkeeda ha ugu rido kii siyaasad hufan oo midaynaysa iibinaya ha doortaan 3 qof baa kursiga daneynaya laakiin nabadda iyo horumarka iyo wada jirka iyo walaalnimada Soomaaliland qaranka dhismay maanta shacabku maal gashadeen ee waxa aynu halka aynu ku hadlayno iyo goob kastaba ay ka dhisteen waxa dareynaya 3 milyan oo qof 3 milyan yaani 3daasi ka qaalib noqon 3 qof iyo siyaasiyiinta anigoo kala ana waxaan ugu baaqayaa inay wada jirka iyo midnimada ummadda reer Soomaaliland ilaaliyaan inaanay inta jooga kala dirine inay inta maqan doonaan oo aanay inta jooga usha ku dhex dhufan oo aanay inta joogta aflagaado iyo warbaahinta umar warbaahintana mid baan ka codsanaya warbaahinay waxaad tihiin aalad warka ummadda u gudbisa waxaad tihiin ummaddu waxay tix raacdo oo gaarsiiye waxa jira billaahi calaykum run gaarsiiye haddii war idin soo gaadho islaam baa tihiina diintiinna u noqdo in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu an tusiibu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin ilaahay baa saa yidhi ilaahay miyaanayna rumaysnayn haddii warkuu yimaadaha qorin dee caddee baa lagu yidhi fatabayanu haddii kale waxay keenaysaa inaad qolo warmaqabta ah ushaada ku dhufato qowman bijahaalatin fatusbix oo dinda ka murugooto kasaaka waxaa qoray maxaa u sharaf anigu waxaan ugu baaqayaa jaraa'idka iyo kuwa nooca la midka ah etigiska iyo sharafta iyo iimaanka iyo dadnimada iyo diinta ka tegey inaan weligood la iibsan weligiina iibsanin waayo sharaftiisii buu diiday inuu tudho diintiisii buu diiday inuu u tudho ummaddii buu diiday inuu uga tudho wax beena oo ceeba hadduu maanta naxayo ha xidho waxaan u gudbinaynaa qaranka Soomaaliland garsoorkiisaan u gudbinaynaa inay keenaan ka qaadaan waxaasoo kale adduunyada waxa laga qaadaa damage ku geystay wax leeg baa laga xukumaa ayaa laga qaadaa waxaan ku soo ururinayaa warbaahinta guud ahaan ma wada ceebaysnidin ehlu sharaf baa idinku jira dad karaamala idinku jira dad warka hufaa idinku jira qaar ku soo baxay sharafta ku jira bal dubu baara jaraa'idka caadada ka dhigtay cambaaraynta iyo mudday shaqeeyaan mana shaqeeyaan laakiin kuwa waara waxa weeye kuwa sida caadiga ah u shaqeeya bal dubu ku noqday idinku eega intii jaraa'id ee lagaadada iyo subaxa waxay doonaan qori jiray ee habeenkii intuu qofku wareero wax wareersan uu bulshada u soo dhigi jiray dhammaan way xidhmeen waayo ilaahay ma buunbuuniyo waxa xun waxa wanaagsan baa taaba qaada waxa soo haray oo jaraa'idkeennii taaba qaaday ama warbaahinteennii taaba qaaday kuwii sida sharafta leh waxay hubaan oo keliya qorayay warka waa loo baahanyay laakiin dee beenta looma baahna asalaamu calaykum waraxmatullahi maxamed nuur caraale